halkan waxaa iga xiran qaybta beeraha. waxaan moodaa inuu ilaahay isugu daray dhul aad u qurux badan. daaqi ayaan hadda bilaabaynaa. ilaahay baa ku mahadsan oo inama ka siiyey dhulkan quruxda badan. mar uu jamalidiisa iyo biyihiisa ay wada daadanayaan, marna ilaahay uu noogu nimceeyo dhulkaas caadiga ah oo dalagaas aan ku beerano oo waxaan rabna aan ka soo baxno, oo aad moodid bishayga dhulka dhigtay in bilo uusan dhaafaynin oo sida rabta aad u guranayso. hada min fadli rabbi wa nimca ilaahay uu nasiiyey. waxaana dareemi kara ciddii alla weynaashihiisa iyo awoodiisa fahanto. ilaahay baa mahad dhammaanteed u sugnaatay. alladii adcamanaa wahadaanaa lilislaam. maanta waa kaasaa waxaan ku suganahay magaaladeydii. waa magaalada Baydhabo Jannaay oo aan ku dhashay oo aan u nasab sheegto oo dadnimadeedii cizigeedii iyo sharafteeda maanta aan dareemayo xaggeeda inay ahaatay allihii igu abuuray oo maanta dejiyey. waan ku mahadinayaa meel walba degana. sidoo kale ayaan ugu mahadinayaa. ma ahan mid aniga ii qaasay, qof waliba meeshuu ilaahay siiyo inuu ku xamdiyaa. dhib iyo dheefba uu ku qababa xamdiga ma ahan shayga keliya wanaaga ah. walaalahayga Soomaaliyeed xamoodina inaan aniga gooni u ahay, balse qof waliba meeshuu deganaa uu ku soo barbaaray, uu ku boodboodi jiray oo halkaan meeshaan ku dalxiisi jiray. yaraanteeda aan ku raaxaysan jiray ayaan maanta dareemayaa webiyadaas waxaas. alxamdulillaah. buurahaasaa u jeediyey jamadaas korkooda geedaha ilaahay ku bixiyey ma ahan dhul caadi. waa kaasaa ila daawada birdigii ku yiri isha Baydhabo. waa kaa ila daawada in badan. waxaad moodaa dhulkaas sidaa u cagaaran, sidaa u quruxda badan. ilaahay baa noogu deeqay, allah nama ka siiyey. waa taa beerihii. weliba hadda ilbaabkan joogaa gudaha haddaan gala nimcada ay beeraha waad la yaabaysaan. laakiin addoommo ilaahay had iyo jeer maanta waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo oo aan ugu jeclahay. magaalada Baydhabo aan ugu jeclahay. xaruntan waa xaruntii ugu dambeysay 20 sano ka hor oo aan ku dhashay kuna soo barbaaray. halkaas hadda rabo wiilka inuu fuulo waa meeshii hadda ka hor anoo ka soo teestaynaya. aan rabo inaan biyaha ku dabaasho. jimalkaas korona aan ka soo boodo darteed aan ugu dhaawacmay garka hoostiisa liina qoday 7 qodob. waxaan moodaa in xasuus khaas ay leedahay bartaas. meeshaas waa meel cajiib ah. waa meel aan aad u xasuusto marnaba aan ilaawi karin. ciyaalkaas hadda fuulaayo ila arka wiilkaas meeshuu hadda ka soo teesteen rabo. diyaar. waa meel aad u xasuus badan halkan. waa meesha noloshayda aan ugu jeclaa oo aad moodo in dad badan ay ku dhaqmayaan. jimalkaas waxaa ku yaala meel darjiil ah. marka fiidada ku laaba hal mar ku laaba ka soo teestay meesha. hal mar xagga fuul ku laaba soo teestay. darjiinkaas iyadoo meesha ay kaga muuqdo waa jimalka dhexdiisa. waa meesha lagu talagalay in la fuulo, laga soo fuulo ama qofka uu ka soo boodo ama kala foto soo sameynaya ama teestaynayo. halkaas waa halkii yaraanteeda aan ku boodi jiray, inkastoo hadda aan moodo inay ka yar tahay awal ka dheereed. biyaha iyagana waxaa u dhexeeya tallaabo dhan waxaan qiyaasayaa 7 mitir inay tahay. balse ruuxa yaraantiisa ma dareemayo waxyaabaha qaar markii weynaado uu filaya. halkaas waa halkii annaga aad ku jiri jirnay intaan ku yaacno. darjiinkaas yar ayaa dadka ku jiri jireen. diyaar. Yes. sidoo kale marka looga dhig
halkan jamaladana u jeedid waxaan moodaa waa hubo ilaahay biyaha halkaas yaacaya waa xag alle ka socdaan waxaan ma ahan biyo bini aadan inkastoo aadamaha iyo biyahooda ay xag alle ka imaanayaan haddana waxaan moodaa inay ku sugan tahay waxyaabaha qaar maalintaas waxaan gareynayaa farxad iyo gooni ah oo ka duwan farxaduhu kale waayo waxaan ka duwanahay ما واسعة ما دو هدوها جملة ده ما دو ولي واسعة ساقي عقب مش علنا ده صحوا يا ولي وايد بس عطا حتى أنا أقول عليه وأبغى في حد ولا حتى أنا أقول صعدوا جملة دي كفر ولا waxaan moodaa inaan ka duwannahay dadka qaar oo deegaanka kasoo haddana buuraley ahayn ayuu ilaahay wuxuu ku manaystay jimalo oo meel qura aysan badnayn aad moodid in meel yaruu ilaahay ku biiray jamaladaas iyo waxaas iyo biyahaas iyo bahashaa weyn lagu dabaalanayo waa meeshii aan ku soo koray aan u jeclahay jiray laakiin ku badanna waxyaalaha qaar hadda aan ku taaganayaan ku xasuustaa in dhab layga xaday xagga sahlayraanteyda ama qof ku diinay wax waliba balse maanta way iga duwan tahay wixii hore farxad waliba oo aan soo maray waa the best day of my life the best day of my life I'm very glad I'm very happy I'm very delicious for the things going here that everybody can happy. This is my part of my life. I can simply feel what is going here. Okay, so you have to continue with me. Olmuyor bir şey. Bu ayağı. Bunu bakar. O tamam. Hadi ya. Bunu da aşağı koyalım. O kadar güzel bir yere.